halkani waa Faras TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu muhiimsan. Qodobada ugu doorka roon ee aan idinku hayno wararkeenana waxaa ka mid ah Mustafa Cagjar oo garabkiisii ONLF u sameeyey sanduuq dawarsi ah cusub. Itoobiya oo TPLF ku eedeysay inay cadcad u jareen wasiirkii maalgashiga dowladdii ku-meel gaadhka ahayd ee Tigray. Debretsion oo sheegay inuu dagaalku bilow yahay iyo TPLF oo soo bandhigtay maxaabiis Soomaaliyeed oo ay gacanta ku hayaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar, gambaleelka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya. Videoga like saar, share dhaho asxaabtaada la wadaag, wixii kommentaana xagga hoose nagu reeb. Kusoo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. Wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwo Yusuf. Madaxweyne Mustafa Cagjar ayaa bilaabay qorshe cusub oo uu ugu dawarayo garabkii uu ONLF ka soo saaray ee uu xisbigiisa BB ku soo daray ee Rayaala Xamuud oo Ciise ah uu guddoomiyaha uga dhigay. Wuxuu sameeyey Mustafa Cagjar sanduuq dawarsi oo uu ugu magac daray sanduuqa tabarucaadka dhibanayaashii TPLF, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inuu sanduuqani yahay mid wax loogu ururinayo garabkii ONLF ee reer Isaaq, beesha Ciise iyo makaahiil ka koobnaa ee ina Cagjar hunguriga ku raacay. Kadib markay dowladdii Mustafa Cagjar u weyday waxay xataa kirooyinka guryaha iskaga bixiyaan, ayaa wuxuu u sameeyey Mustafa Cagjar nooc uu shaqo abuur uga dhigayo, laakiin bahdil iyo dawarsi ku ah. Wax dhibana ah oo in wax loogu qabto sanduuqan loo sameeyey ma jiro, ee niman baa la rabaa in la iskaga jeediyo oo ay kirooyinka iskaga bixiyaan, kadibna ganacsi ku samaystaan si ay miisaaniyadda dowladda oo reer Cagjar ku filan ay uga sii jeedsadaan. Karistaaga maalin walba taaganna ay u joojiyaan. Mustafa Cagjar dhibanayaal uu wax u qabto iyo sanduuq uu u sameeyo iska daayay garabkiisan ONLF ee uu xisbiyeystay ayuu xafiis u kiray lahaa meeshuu hantida shacabka uga xalaaleeyey. Sanduuqan waxaa la sheegay inuu furihiisa hayn doono garaad kulmiye oo ah dhiigyacabka ummadda Soomaaliyeed ee maanta ahna calooshiisla ciyaar aan garaadnimo u qalmin oo jaajuus u ah Mustafa Cagjar. Haddaba waxaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka degan ku wargelinaynaa inaysan ka qayb qaadanin sanduuqan cusub ee ay ina Cagjar, garaad kulmiye iyo ONLF qaybta dabaqii kadhi ku muranta ay u samaysteen inay dhiigga iyo dhacaanka yar ee ku hadhay ummadda inay kaga nuugaan. Gaar ahaan ganacsatada deegaanka waxaan u sheegaynaa inay sanduuqan xaaraanta ah ka feejignaadaan oo aysan hal shilin ku darsanin, maadaama oo aysan dan ummadeed ku jirin ee rag camal la-aan ah guryo loogu dhisayo inta magac ummadeed la huuyiyo si loo hodo ummadda oo waxqabad looga dhigo. Haddaba la soco, lacagta aad sanduuqaas ku darsato aakhire iyo adduunba waa cadaab aad horumarsateen. Xisbiga mayalka adag ee TPLF ayaa soo bandhigay koox dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ay sheegeen inay dagaalkii waqooyiga ka qayb qaateen oo maxaabiista dagaalka ay ku qabteen ka mid ah waqti xaadirkana ku jira gacantooda, iyagoo weliba ay qaarkood dhaawac yihiin balse u eg in la daweeyey. Wiilashan maxaabiista Soomaaliyeed ah ee TPLF dagaalada ku qabatay ayaa qaar ka mid ah sheegeen in lagu khasbay dagaalka, iyagoo Eritrea tababaro ugu xaraysnaa sida ay TV-ga DW sheegeen. Shalay ayay ahayd markii dowladda Mareykanku xaqiijisay in ciidan
Soomaali ah ay ka dagaalameen waqooyiga Itoobiya laguna qabtay gudaha Itoobiya. Wararkayagii shalay ayaan idinkula wadaagnay inay jiraan maxaabiis Soomaaliyeed oo ay TPLF ku qabatay dagaaladii waqooyiga Itoobiya ka dhacay iyo inay muuqaaladooda soo bandhigi doonaan. Dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay jamhadda TPLF inay cadcad u jarjartay wasiirkii maalgashiga dowladdii ku-meel gaadhka ahayd ee deegaanka Tigray ka arriminaysay biraha kooban kadib markay TPLF dib ugu soo noqotay caasimadda deegaankaas Maqala ee Tigray. Madaxweynaha rasmiga ah ee deegaanka Tigray Dr. Debretsion Gebremichael oo hadlayna wuxuu sheegay inuusan dagaalku dhammaanin ee uu hadda uun bilow yahay. halka madaxweynaha Itoobiya Sahle-Worqe ay sheegtay inay deegaanka Tigray qayb ahaan uun ciidamadii dowladda kala soo baxeen balse ay goobo badan weli ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya iyadoo shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay laga soo saaray inaysan xataa ciidamada axmaaradu sii joogi karin deegaankaas.